17 bishan ayay ahayd markii ay xoogaga ciidan hubaysan ay la wareegeen kastamka magaalada Tukaraq oo ah qaabka ugu horeeya ee maamulka goboleedka Puntland ay cashuurta kaga qaadaan gaadiidka iyo maciishadaha gelaya gudaha maamul goboleedka Puntland. Ciidamadan ayaa waxa ay si xooga ku qabsadeen kastamkaasi iyadoo aanay wax dhiigahay ku daadan, taasi oo ay ku macneeyeen in ay tahay mid ay uga jeedeen in ciidankani ay ka waayeen waxyaabihii ay uga baahnaayeen kastamkaasi iyo maamulka u hoostagaba. Taliyaha ciidankaas Maxamed Raage Xirsi oo saxaafadda la hadlayay mar uu kulan saxaafadeed ku qabtay goobta kastamkaasi ku yaalo ayuu si aad ah waxa uga faallooday dhacdooyinkii ay soo mareen iyo hawlihii ay ka soo qabteen deegaano badan oo ay ka mid ahaayeen joojinta dhuxusha iyo banaynta kaantaroolo xoog badan oo yaalay wadada dheer ee isku xidha magaalada Laascaanood iyo Galay. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal ka soo jeeda beelaha deegaankaasi kuwaasi oo iyagu si aad ah uga faallooday ciidamada iyo waqtigii dheeraa ay hawlgallada ku jireen, kuwaasi oo sheegay inay ciidamadu badbaadiyeen deegaano badan oo haatan baabi'i lahaa siiba dhulka soolasha ee dhulku ku badan tahay oo ay markaasi dad badani ka dhigteen meelo ay xaalufiyaan haatanna u noqday dhul nabaad guuray. Odayadu waxa ay sheegeen inay ula socdaan ciidamada inay ka ilaaliyaan inay ciidamadaasi wax dhibaato ah la yimaadaan, isla markaana ay haatan u baahan yihiin in ciidamadani ay awood u helaan waxqabadkooda iyada oo ka sugaya kastamkaasi inuu ka soo galo dhaqaalihii ay ku hawlgeli lahaayeen. Waxaana ay xuseen in dhibaatada badankeedu ay ka timi kastamkan Tukaraq oo hantidiisu ay ku xirooto magaalada Garowe, isla markaana aanay dib uga soo noqonin, taasi oo aan waxba ka soo gaadhin dadka deegaanka cashuurta laga qaadayo ku dhaqan iyo magaalooyinka kale ee deegaankaasi la xidhiidha. Guud ahaantood waxa ay si toos ah u beeniyeen in aanay ciidankani haba yaraatee hoos tegin maamulka SSC kaasi oo warbaahinta ku fidiyey in ay maamulkaasi ay qabsadeen deegaankaasi. waxaanay guddigood xuseen in aanay wax xidhiidha haba yaraatee la lahayn maamulka SSC ee fadhigiisu yahay deegaanka Buuhoodle, iyagoo oo xusay in ay yihiin dad ka soo jeeda deegaanka SSC marka loo akhriyo inay yihiin Sool, Sanaag iyo Cayn. Ugu dambeyntiina waxay carabka ku dhufteen in ay haatan iyagoo xidhiidhkoodu uu si toos ah ugu xidhan yahay maamulka lagu magacaabo Kafi Community oo isagu maamula deegaanada Ceergaabo ilaa iyo Laascaanood u dhaxeeya, kuwaasi oo ay dhaqaalaha iyo wixii ay u baahan yihiin ay la xidhiidhaan marka laga reebo mas'uul ka tirsan maamul goboleedka Puntland oo iyagoo aasaaskii ciidankan iyo awoodtiintoodaba lahaa. Waa Axmed Karaashe, Faysal Jaamac, Somali Channel, Tukaraq, gobolka Sool, Soomaaliya.